الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلمة aynu kaga warramaynay bisha Ramadaan iyo sida qofka muslimka ugu diyaar garoobayo waxaynu ku soo qaadanaa qodobka kan diyaar garowga bisha Ramadaan iyo saad uga faa'iideysan lahay loo diyaar garoobo waxa kamid ah inaad sii samaysatid qorshe hawleed acmaasha saalixaadka ah ee Ramadaanta aad kaga faa'iideysanaysid. Ramadaanta soon kaliya ma wax laga faa'iideystaa sax soonku waa rukni weyn oo ku dhex jira oo rukniga bishaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u asteeyay laakiin waxaad ogaataa amal kasto saalix ahaayo la sameyn jiray waqtiga aan Ramadaanta ahayn Ramadaan marka la soo gaaro fadli dheeraad buu leeyahay aad u weyn quraan akhrisku markasta fadli buu lahaa laakiin Ramadaan wuu sii fadli badan yahay sadaqadu mar walba fadli bay leeyahay laakiin Ramadaan way sii fadli badan tahay dadka oo wax la siiyo oo la cunto siiyo waa sadaqadii uune waqti kasta way fadli badan laakiin Ramadaan way sii fadli badan tahay ihsaanka iyo kelmadda wanaagsan iyo musaacadada iyo taageerada dadka bini'aadanka loo fidiyo waqti kasta wanaagsan tahay laakiin Ramadaan way sii fadli badan tahay waxa laga rabaa marka inaad samaysid qorshe amal kasto saalix oo wanaagsan oo awoodid aad Ramadaan uga faa'iideysanaysid maalinta Ramadaan kow noqoto habeenka leeyahay way dhalatay waa inay ku degsan tahay intii jeer aad quraanka khatimi lahayd intii jeer tira imisaab quraanka khatimi lahayd waa inay meel kuugu qoran tahay adoo sii qorshaystay oo ku saleeyay waqtiga aad haysatid shaqooyinka aad qabanaysid iyo waxa la yiraahdo inta fursad haysatay adoo ku saleynaya waa inay meel ku sii taalay inta jeer aad ku tala gashay inaad quraanka khatinto waa inay meel ku sii taalay salaatul leylka iyo qiyaamul leylka saad uga faa'iideysan lahayd taraawiixda markaad hadhow gurigaaga tagtid iyo intaad tukan lahayd ma aragtay waa inay iyadana ku jadwalaysantaa ku qoranta sadaqa maxaad haysataa maxaad bixin kartaa mushahar yar hadaad qaadatid waa taqaana meel ganacsi hadaad leedahay waa taqaana maxaa ka go'i kara waa inaad qorshe u samaysaa qorshe waa inaad u samaysaa qofka bini'aadanka hawlihiisa adduunka qorshe u sameeyaa qorshe waa inaad u samaysaa bishan Ramadaan lacag inta leeg baan sadaqaysan karaa sidaa doonta adigu qorshe wiig walba Ramadaan kamida miya maalin walba Ramadaan kamida miya habeen walba Ramadaan kamida miya adiga sidii ku suuragal ah waa inay taasna meel ku taala qaraabadaadii xiriirintoodii iyo ka warhayntoodii ayaduna waa inay tahay qorshe meel ku yaala waxaan markaa ula jeedaa qof kasto muslimaho yey ku soo galin bisha Ramadaan adoo isku dhex yaacsan oo waqtigaaga isku dhex yaacsan yahay oo ma aragtay maanta ma shaqadan aan qabtaa mise tanaan qabtaa saad ugu dhex wareersan tahay adoo quraanna akhrinin waxa la yiraahdo sadaqana la bixin ducaysanin in yar meel fadhiisanin oo Ilaahay baryin hadii Ramadaantiiba ku dhaafto tii maxaad malanaysaa khasaarata marka waa inaad samaysataa qorshe aad kaga faa'iideysanaysid bisha Ramadaan qorshahana waxaad sii dejinaysaa intaan bisha Ramadaan imaanin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.